kulan wacan daawadayaal ku soo dhawaada qaybta labaad sheekada cirbadii eelka reebtay. Sheekadan waxaa qoray Cabdullaahi Saalax Axmed waxayna ku bilaabanaysaa qaybta labaad. Waxaan ahayn qoys danyar ah oo degan mid ka mid ah xaafadaha isku raranka ah. Aabahay wuxuu ahaa siriiryaal xanuuno jilciyeen, macaan iyo dhiikar ayaa dhulka dhigay. Da'ina waa u raacday. Hooyaday waxay meherad yar oo ay shaaxa ku kariso ku haysatay meel aan gurigayaga 3 qol ah ka durugsanayn. Aniga ayaana wax caruur ah uga joogay qoyska. Iskuulka fasalka afraad ee dugsiga sare markan u gudbi lahay ayaan iskaga haray caawinta qoyska oo layga maarmi waayay darteed sababo dhaqaalana waa ay jireen. Waxaan bilaabay in aan nadiifiso ka noqdo isbitaalka xaafadda ku yaala oo aan laba gelin oo waqti u dhaxeeya ka howlgali jiray. Waxba iska bedelay dhaqaalihii xaafadda. Hooyo ayaanan ku qanciyay in ay iska dhaafto shaqadan shaax karinta, aabana ay ka warhayso. Muddo haddaan shaqadii waday ayaa duhurnimo Talaado ah fariin isoo gaadhay anoo isbitaalka jooga, qashin cirbado u badan aruuri la igu yiri faraha ku haya. Waa hooyo. Degdeg ayaan telefoonka uga qabtay. Waxay ii sheegtay in aabbo uu xanuunsanayo, dhaqsina la igu baahan yahay. Walwal hor leh ayaa igu bilowday. Waxaanan bilaabay dedejinta hawshan faraha ku hayay. Wixii aan tiigsan karay oo saarnaa miiska ii dhow ayaa gacanta soo mariyay. Silinka miiska saaran oo bilaafur ahna waan haabhaabtay. Inaan daboolo ayaan damcay ka hor inta aan qashinka ku ridin. Si lama filaan ah ayaan isku dhaafiyay cirbadii iyo daboolkeedii. Afkii dhumucda yar lahaa waxaana i damqisay. Cirbadii farteeda ku libertay, laftana ka shanqarisay. Waan iska saaray, dhiig badan ayaa iga baxay. Waxaan u cararay dhanka isbitaalka gudihiisa. Markiiba waa la iga dabiibay oo waxaa la iga dhajiyay sharooto si dhiigga loo joojiyo. Waxaanan maamulka u sheegay in aan fasax u baahanahay, aabahayna uu xanuunsanayo. Sidaas ayaana bannaanka ugu soo baxay. Xaafadda haddaan soo gaaray waaba xaafadii oo lagu buuqsan yahay. In yar markaan u soo jiray ayaa walwal igu bilowday. Shaydaanka ayaan iska naaray, horena u soo tilaabsaday. Gudaha markaan soo galay ayaa islaani gacanta i qabatay, docna iila baxday. Waxaan damcay in aan iska dhufto. Qol lagu buuqsan yahay ayay indhahaygu ku maqnaayeen. Sawaxanka ayaa dhagahayga soo gaarayay. Fikrado badan ayaana maskaxda ku hardamaya. Hadal badan ayay islaantii isdaba dhigtay. Waxaanse ka fahmay hooyo noolaba dhimay. Ilaahay aabbo ha u naxariisto. Samir iyo iimaan Allah inaga siiyo. Dhintay yaa dhintay. Waa kuma aabe? Su'aalahaas ayaan weydiiyay. Waan soo cararay, waxba ma qaban karayn. Qolkii haddaan soo galay oohin aad moodid in layla sugayay ayaa la isku jiibiyay. Bilo ayaa ka soo wareegay geeridii aabbo. Noloshayadu way isbedeshay. Cidlo aan qiyaas lahaynna waan dareennay. Aniga iyo hooyo ayaa isku harnay. Waan isweheshanay. Wax kasta oo ay ii ahaydna laba jibaar baan isku noqonnay. Dhowr goor ayaan kula taliyay in ay iska nasato, shaqadana iska dayso. Wayse iga diiday oo bil kadib geeridii aabbaba waxay dib u furatay mihradeedii shaaxa. Sidii bay howluhu ku socdeen, farxaduna waa ay soo taraysay. Waa adduunyo, shalay murugo ayay noo ahayd. Maantana waa inaga faraxsan, berrina xag Allah ayay naga xigtaa. Daawadayaal, waa naga intaa qaybta labaad sheekadii cirbadii eelka reebtay. Intaan ku kulmi doono qaybta 3. Nabadgelyo.